waatiin saaxiibayaal soo dhawaada mar kale meel kastoo aad joogtaan khayarta sharafta badan ku soo dhawaada barnaamijkeena maxaa cusub iyo caweyska wankan media caawana waxaan ku soo qaadanaa mid kale oo kamid ah qodobada xiisaha lahaa aad nooga barateen barnaamijka stuudiyaha koobaad ee magaalada Hargeysa waxay kula sugan isla maraantaas inagala qayb galaya wariye Cabdiraxmaan Xasan Cabdullaahi Tookiyo oo kamid ah saxafiyiinta degan magaalada Hargeysa iyo reer Somaliland wataa Cabdiraxmaan soo dhawo aad baan loo yahay Yusuf Xinirooy way horeynu ku bilaabana aad baan mahadsantahay waan bilaabina barnaamijka deewaan ku garanayo anigu waan ku aqaanayo mi iyo dhulkii barakada lahaa waad ku sabab laakiin ka soo way meelu kala manaba wataa baliga warano dhaqanka miyiga iyo kan magaalada dhaqanka miyiga iyo magaaladu inkastoo isku dhow yihiin haddana waxa loo rakaca way kala duwan yihiin oo de miyiga waxyaabo badan oo magaalada halkan waa iska joogaysa miyiga de subaxdii saad u baxdo ariga u raacdo ima soo noqonaysa galabta riya ma raaco aad ya maxaad ka xasuustaa riya hayaa riya waa khataro de ninkii raacun baa garanay way ma u heesi jirtay iyo heesooda wallahi marka islaamaha inta badan riya waa sararku geeya ayuu heesa way bal soo qabay heesta kul adigu laftiga waa riyo wad raacdo waa ma islaan heesta ma haba heesta waa fahansata soo qabay heesta waxa uu tiriyo dhaymare oo dhanaan mare oo dhafar maxaa laga dhaqan waxa heesa badan oo naas midibtooda wad garanaysaa niyo waa naga loo dhaad way horeyna ku sii soconaa aroosida miida ma tagi jirta adigu waan tagi dhowr aroos oo ka qayb galay aroosida miiga way faqriga aroosida miiga iyo kan magaalada u dhaxaya kan magaalada aroosida miiga isku farq weyn baa u dhaxay wallahi dad soo weerto oo kan waxa kaaga baxaya lacag badan oo hotel baad karaysanaysaa kaana waxa dhacaya waa miiga yar oo qoryo iska taaganta way daahiyar bas ka xiranaysaa way dawad khaamtaada habeenkii caagidii waxa lagu garaacaya shirkaam iyo tabcado waa tahay ayaa ma ka haysta habi adigu waxa arashada qarwad ka haysta aan ka haysta markaas qaabkee loo isugu soo xulanaya ayaa xiriiray wasidii habeenka waxa la magacaabaya habeenkaas kaliya la soo doortaan mareykaas in dheeraado askari loo yaqaan hay waxa lagu leeyahay askari baa haysta arooska way askarigaas wuxuu soo kicinaya intu doorto soo kicinaya way oo farta ku fiiqay wata cidda haday soo kay wadays adkayso hees xolo khaldan baa lagu fariyaa lagu caayay isla markaa dhigto wadad wax ka xasuustaa waxyaalo kale ma hayno wax ka xasuustaa laakiin kaalay kabaha soo qaado bar ka garanaya hees la isku daadinay wiye marka waa la isku forjeenay way wanin iyo gabadhii soo kici waayay labadaba laba kaleegay waa tahay askarigaasna halka protocol ahaan buu jira sida habeenkaas u maskariye subaxdina meesha ka yimid qabanaysa waa sax waa tahay bal haasawahooda intaan leeg bu socdaa hadaynu halkaa yara faaqin haasawaha magaalada iyo kamiga farq weyn baa u dhexeeya oo ah kamiga inuu ka fuzi oo wax yar oo aan macno lahayn xagga badan ku sii tagnayn uu yahay 24 saac 24 kaba yar oo isla habeenka hadii la doono la kulmo habeen qura ku ka magaalada inuu yahay inta la iska garanayo 5 sano iyo tusaale ahaan hadaynu daawadayaasha yara fasirno aroos baba la iskugu imanaya ma ciyaartii wixii baa la iskugu yara imanaya habeenkii qaybta hore bacda marxibka dabadeedna inta yar baa lagu sheekaysanaya 10 ama 12 kan waa la isla tagay waa dhacdiin baa waa la isdhacaya waa la isla tagay subaxna waa la mehelinay subaxdiina waa reeri iyo waa habal isbidarsanay wata halkaas lagu adago dhamaanaya laba sheeko waxa jira kugu dhacay marad joogtay magaalada Berbera aad ya sheekadu waa sheekay midi waa tii ayga ka qabsatay midna waa tii ka qabsatay maxaan ku dhahday roodida iyo farmasiga bal soo qabo ta farmasiga hoto waxaan ka yimi adu saas ka garanaysa de dhaqan migi magaalada de waa waf magaalo mi tagay qof magaalo ka yimi mi tagay lama sidoo qabsada waqti bay ku qaadanaysaa qof mi ka yimi magaalo yimi aduu waqti bay ku qaadanaysaa waa kidid way isla markaa waxa lagu shoodi soo yibi way habeenkii ugu horeysay roodi loo dirana cashado way hay waa tahay dabeetana waxa dhacay adigu dukaan yar ii dhowman ayin baa laga siibiya way soo kulada kii way ka dhamaatay waa lagu kareetay wali yar afsano habeenkii dabeetana waxa jirta bal magaalada hore si karo dukaamada hore weydii anigu waxaan haystaa markaa miska si dukaan u haystaa way gebigeedo dhan masaajidku ma ka beerayaaniyo waa tahay dabeetana waxay ugu soo baxay mid baan weydiiyo ma hayo kii kana weydiiyo soo farmasi baan igu soo agay kaagii dawooyinkii lagu iibinayo baan galay way aan ku horiya salaam alaykum alaykum salaam ashuriigi iibinayo ma tala ruudi soo dhamaatay
ninkii baa yaabo aamusay taasare ya wiyar fikiro heegori ma yaadar ma taale furin baa yaade ar furin mar rabe haru furin gii roodi markay ma kala saar roodi ma anu garanaya baa laakiin wuxuu igu si ciyaaraya midkan waa waxay guri waradar ma hayo roodi furin baa hayaan furin kana soo soconade roodi baa loo yaqaan way isna waxa ku anu furin mar raban iyo roodi ma jeen sabay may ninkii wiila yaabo bas qoos ana waxa yiri ninkan wax galu jeeda mara war iska dhaaf way wada sheekadaas way tii aygana ma soo qabo sheekada ay waxay ninka meesha iska joogay ayba xagga wax iska farsan jiray xaafadaha hortooda aydina wadiga arkooda wax iska farsan magaalada dhexdeeda ay gaar ku jiro hala marka ay gaar ku jiro marka suuqa wax laga daro alaabta marka siibi way ay mararka aygiyo xanaaqsan oo wadakii kala xidhay way raxsan maxaa ka ayga waxa cid ka xariisay ilaa ma fahmin way tabeetana aygi ma soo maro anoo si nabadgeliya meesha ku dhac ayaa anigii la soo weerar agtaysa way naf orod bay ku gaamtay baqal cagaad wax ka day cagaan wax ka day waan gartay aduu baalkii iqama gaadh adoo maqaqan dukaan bay ku dhaweyd dukaankii baan ka galay igu warkan qabsa way qabsay oo dukaanka idan iyo waxa mad weydiisan nafeeyay wad sida waan jiro gundadaan u gala way baal wada bartiga gaar way aduu dadkii baa goreysay maxaa fiiriyo aduu la faalin ay yeeriyo wad shoogtay taasina taasay watay ninkii ehel marqaanka sheekadiis ninkii ehel marqaanka waxa nin baa wuxuu ahaa nin qaadka aad ugu daran way dabeetana waxaa dhacay abaaraa dhacay dadka miyigan waxa ku qayan inta badan wax xoolahooda way abaar xun baa dharbaaxnimiga wata xoolihii iyo way dhinteen midba adigu ninkii xoolaha badan lahaa waxa uu soo haray 220 ayaa ugu soo haray xeerad way kadib waxa dhacay ninkii magaaladii bitaka wuxuu yidhi maanta aan qaadi wax doonto way dabeetana kii qaadka uu ku yidhi niyo maanta adigu de arrimihii uga sheegay abaari dhacayo waan gartay wax ayuu uga sheegay ninkii way dabeetana kii wuxuu ku yidhi iska daafiyay wuxuu ku yidhi aniga warado ama lacag la kaa ama nagat ama dee arigaaga qaba iyo xaafadaada way ninkii uu fikiray markaa uu shuuriyey way markuu fikiray waxa ku tashaday ninkii buu ku soo noqday way ninkii wuxuu kula heshiiyey inuu yidhaahdo waa niyo xaafadii iyanu tegaya way adigu anaa ka qaadaya neef adigu waxaa iska dhigtaa mise ka soo doontay maskiin way dabeetana hadhow marka neefka soo qabto un xagga kasoo mar gurigo aan ku dhiibay dee neefka way dabeetana neefkana neef ciyaar lagu bixinayo ma hadda islaam baa joogta meel khatar way oo qaad neef si sahlan qaad loogu cuni karaa iyadoo abaara dhayeen ma jiro way dabeetana gowsaha ka daadanaysaa reerkii buu soo galo biriis baa loo soo dhigay ninkani biriis ma jeeday dabeetana biriis buu yidhi baalku qadhaadha way dabeetana waxay tiri maxaa qadhaadhi baalku anu waa qaasi dabeetana wuxuu yidhi hota harigeen iibsa mirayay wablaab marka ay ka tiri ma ari baad waa kii halkii bay ka bilowday 22 ari baad meesha ku haysata qeeq baalku qadhaadha soo si kale lagu leeyahay wanaga horqaad anaga hoos qaado biriiski ugu daayay xagga u daayay waa gartay dabeetana wuxuu yidhi baalkan markaasay tiri maxaa deysa kaa wuxuu 22 waan gartay markaasuu yidhi nin waliba intuu hayso ma kasi kooday hadduu 5 hayso sigad way ka baxaa dabeetana sakadin wuu soo qaba neef la soo bood ergaxan dabeetana kii walka taagan ayuu u dhiibay uu yidhi kii baalkan soo maray uu yidhi markaasina ninkaasina sheeka marqa ayay saas ku sidii ku qayl waa tahin aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan waa hagaag daawadayaal intaasi iyo sheekadaasiba waxay gunaanadu ahayd barnaamijkeena caweyska warbaahinta Unkad Media iyo maxaa cusub wariye Cabdiraxmaan Xasan Cabdullaahi Tookiya ayaa goorsi horeysay wareysi igu siinay stuudiyaha koobaad ee warbaahinta aad iyo aad runtii mahadsantahay tan mid lama isku qiimeeyna geesteeda waxaad kaga tagay sidaa iyo nabaday